nothing but a why you gotta act like nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You send me heavy work, 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 work. Assalaamu calaykum kulan wacan daawade waa mar kale iyo muuqaal kale muuqaalkani waxaan ku eegi doonaa haweeneyda ugu qanisan dunida ee fanaaniinta heesta gabadha iyadoo daayar noqotay bilyaneer nolosheedii gaarka ka hor inta aysan bilyaneerka noqon maxaase nolosheeda wax badan ka bedelay muuqaalkani ayaan kaga hadli doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkayga ku soo gaaro magacaygu waa Yaxya Maxamuud Maxamed wixii bixis iyo joogis waa ay ku furan tahay balse subscribe inaad saarto oo aad ugu soo biirto ayaan kaa codsan lahaa hagaag Rihaana ayaa haatan si rasmi ah u noqotay bilyaneer iyo waliba haweeneyda ugu qanisan dumarka heesa ee caalamka sida lagu sheegay wargeyska Forbes xidigtan heesta ayaa waxay haysataa hanti gaaraysa 1.7 bilyan una dhiganta 1.2 bilyan oo pound iyadoo la qiyaasayo in 1.4 bilyan ay ku fadhiso shirkadeeda samaysa alaabaha ay haweenka isku qurxiyaan ee Fenty Beauty dhaqaalaheeda kale wuxuu inta badan ka yimid shirkadeeda dharka hoosta laga xirto Savage X Fenty taas oo lagu qiyaasay 270 milyan oo dollar iyo lacag ay ka hesho heesaha iyo jilinka waxay kaalinta labaad ugu jirtaa Oprah Winfrey oo ah haweeneyda ugu qanisan dumarka caalamka ee madadaalada sameeya Rihaana taas oo magaceeda rasmigu yahay Robin Fenty ayaa sanadkii 2017 waxay bilowday shirkadda Fenty Beauty iyadoo shirkad la noqotay shirkadda iibisa alaabaha qaaliga LVMH waqtigaas waxay sheegtay in ujeedkeedu yahay in haweenka oo dhan ay gaarto markaas oo ay bilowday 40 nooc oo kala duwan oo walxaal isku qurxiya arintaas waqtigaas aanay nooceeda oo kale hore loo arag waxay arintaas horseeday waxa loo bixiyay Fenty Effect xilligaas oo shirkadaha kale ee farsameeya waxyaabaha la isku qurxiyo ayagana wax ka bedeleen wax soo saarkooda ganacsigaas sanadkii ugu horeeyay waxaa laga soo xareeyay dakhli ka badan 550 milyan oo dollarka Mareykanka LVMH ayaa sidaas sheegtay si kastaba xaalka ahaadee dhammaan ganacsiyada Rihaana ma aanay wada bulaalin bilowga sanadkan 33 sano jirkan waxay LVMH ka ogolaatay in la hakiyo fashionka Fenty loogu magac daray 2 sanadood kadib markii la soo saaray heesaaga u dhalatay dalka Barbadia ayaa waxay gaday in ka badan 250 milyan oo cajaladood oo ay duubtay hayeeshee tan iyo 2016 ma aanay sii deyn album ee studio ka duubtay si kastaba ha ahaadee waxay dhawaantan la arkay iyadoo muuqaal ka duubeysa saaxiibkeeda heesaaga Asap Rocky haddaba waa tuma Rihaana waxay ka mid tahay fanaaniinta heesooda aadka loo iibsado oo waxaa laga iibsadaa ilaa iyo 250 milyan waxay sidoo kale ku caan baxday jilida filmaantii naqshadaynta dharka waxay ku dhalatay magaalada Zanti Michel ee dalka Barbados waxayna ku kortay magaalada madaxda dalka Bridgetown waxay halkaasi ku qaadatay waqtigeedii daayarnimada markii uu soo saaray Amerikaana ogaanayay haybadeeda heesaanimo kaas oo ka caawiyay inay ku soo biirto shaxda Mareykanka sanadkii hore ayay ahayd markii wado ay ku nooleed loo bixiyay Rihaana oo lagu sharfay waxay ku guuleysatay inay noqoto qof caan ah oo ganacsiga ku xeeldheer si daradeed waxay awood u leedahay inay door weyn ka ciyaarto isbeddelka wadanka Barbados fanaanadan oo magaceedu dhameystiran yahay Robin Rihaana Fenty ayaa sanadkii 2018 loo magacaabay jago sare oo safiirnimo ah shaqadeedana waxaa ka mid ah horumarinta waxbarashada dalxiiska iyo maalgashiga fanaanada caanka ee Rihaana ayaa abeed geysay maxkamad ku taal dalka Mareykanka waxaana ay ku eedeysay inuu si xun u isticmaalay magaceeda si uu horumar u sameeyo ganacsigiisa dhanka majaajilada Rihaana waxay ku dooday in aabaheed Ronaldo Fenty dadka ganacsiga isla wadaagaan ee been abuureen xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo ganacsigooda waxay dacwad oogayaasha sheegeen dadweynaha marin habaabiyeen sidoo kalena ay dhaawac u geysteen shirkadda Rihaana oo soo saarta alaabta ay isku qurxiyaan dumarka dacwad oogayaasha waxay sheegeen Rihaana shirkadda laga diiwaangeliyay magaca Fenty ku leedahay dalka Mareykanka ayna gudbiyeen cod rasmi ah oo lagu joojinayo arinta ay ku dhaqaaqeen dadka laga soo dacwooday ilaa iyo haddii ay sii wadaan dacwado kale ay la kulmi karaan Mr Fenty oo Rihaana ay sheegtay inuu xiriir xun uu kala dhaxeeyay ayaa shirkadani ka bilaabay California sanadkii 2017 isagoo ku helinayay nin kale oo lagu magacaabo Moses Barkin sida ay sheegeen dacwadoogayaasha warsaxaafadeed la soo saaray oo lagu qoray boga shirkadda bilowga sanadkii 2018 ayaa lagu sheegay in Rihaana ay ka soo qaybgeli doonto daafurka shirkaddan Rihaana waxay dunida magac ka sameysay iyadoo daayar waxaana lagu xasuustaa inay ahayd mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo jeclaa welina ilaa iyo xilligan la daawado mid ka mid ah waxyaabaha dhacay inta ay dunida joogtay waxaa ka mid ah hees loo qaaday si loogu raali geliyo kadib markii uu dhibaateeyay saaxiibkeed fanaan Eminem wuxuu hees u qaaday
u adeegsaday raaligelinta Rihaana kadib markii uu la safay saaxiibkeed hore Chris Brown kaas oo sanadkii 2009 dhibaateeyay iyada Animan oo soo qaaday hees raab ayaa si naxariis leh u raaligeliyay Rihaana heestaas oo la soo duusiyay waan ka xumaay Rihaana ulama aan jeedin inaan adiga ka careysiyaa yiri su'aas waxa uu ka muuqday Eminem albamkiisa la yaabka ee muusikada albamka uu la socday muusikada waxa lagu soo bandhigay dalkaas Mareykanka hagaag daawadayaal guud ahaan muuqaalkii Rihaana waa naga intaas waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkani ka falceliso nabadgelyo